waaya cabdirashiid waxaan ognahay in baarlamaanka soomaaliya ka soo noqday fasaxii uu ku jiray kalfadhigiisina uu bilaabay muddo yar gudaheed waxaa bilaabmay mooshinadii iyo waxyaabihii lagu bartay baarlamaanadii hore iyo siyaasaddii hore marka bal xalka soomaaliya xalka siyaasadda soomaaliya iyo meesha u socda waa su-aal weyn runtii xalka siyaasadda soomaaliya hadda ka hor nin siyaasadda aan aniga iga khibrad badan oo wuxuu yihi siyaasadda soomaaliya haddaad rabto inaad fahantid waxaa u baahan tahay inaad isku wadatid microscope iyo telescope markay kaa fogaatana aad telescope ku fiirisid markay indhaha kaa soo gashana aad microscope kala soo baxdid hadda waxaan isleeyahay taas qofkii soo qaatay inuu weli la yaaban yahay ama ku wareerayo soomaaliya amniga muqdisho kale amniga aada u xun yahay dadkeena saan hadda sheeganay boqolkiiba 5.4 5 milyan iyo 400 kun oo qof baa duruufo haystaan adduunkii oo dhan baa wareersan oo attention badan ba noloma hayo waddamadii dariska ahaay oo caraba welibana hadda iska aan maaragtay soomaaliyana aada u fahamsanayn qab iyo macnaha isla weynina ay ka buuxdo lacagna ka dhargay baa hadda nagu soo mashquulsan iyadoo waxaas duruufa lagu jiro dowladda hadda 4 sano haystay hadda sanad baa baxay 3 baa u bilaabatay iyadoo la rabo marka in hadda sidii hal qof iyo hal cod loo gaari lahaa in la gaaro sidii amniga loo sugi lahaa sidii dadkan dhibaato kusoo socda wax looga qaban lahaa iyadoo la rabay waxaa mudda siyaasiyiinta hadda inay xoogaa isku noqdeen marka arrintaas aada arrin u foolxun bay aniga ila tahay waxay in shaqo loo jeesto laakiin hadda sida muuqato waxaa weeye marka xoogaa amni yar la dareemo kulligoodna ciidamada soomaaliyeed oo dhimanaya iyo kuwa amisom iyo waxaasa bay amnigooda ku sugtaan aa laisku jeestay marka runtii waa dib u dhac weeye aada u weyn bay u keenaysaa in shaqooyinkii la rabay oo ahaa doorasho in la gaaro amni in la sugo dowladnimada in la xoojiyo waxaas oo dhan bay carqaladeynaysaa waana wax aada iyo aad iyo aad rajo xumaan u muujinaya aan loona baahnay bay aniga shakhsiyan ila tahay waan gartay marka bal haddaynu fahamsiino daawadayaasha mooshinkan laga keenay mudane jawaari muxuu sal ku hayaa soomaaliya horta cabsi waxa la yidhaahdo iyo dan markaas degdeg ah baa go-aamo badan lagu gaaraya waxaa dhici karta jawaari hadda sababta loo galay way kala duwan tahay qof macnaha oo hadda xildhibaanadu waraaqda waxyaaba badan bay ku sheegaan ayagoo ay taxeen oo ay ku eedeeyeen laakiin waa un arag waa niman doon saaran doontuna aysa mashiinkoodaba shaqeynayaan inay isla riixaan ay u baahan yihiin haddii marka jawaari hadda la rido ama xukuumadda la rido ama siyaasadda khalq la geliyo rajadii adduunku taageeradu u hayaa yaraanaysa tadakhulkii iyo gacantii banaanka badanaysa shaqadii laga rabay al-shabaab in laga qabtay amniga sidii loo sugaa yaraanaysa marka waa un dana soke oo keenaysa doontii inay ama istaagto ama dib u noqoto ama degto ma jiraa warka sheegaya in ra-iisul wasaarahana laga wado mooshin noocaas oo kale ah haddee macnaha in la shaqeeyay ahayd macnaha haddi qof kasta kursiga haysta madaxweyne nin baa haysta ra-isul wasaare nin baa haysta nin baa speaker haysta kuwa kale xildhibaanay haystaan waxay shaqooyinka kuwa gobollada joogaan qof kasta shaqadiisa inuu imaansado oo shaqo la qabto kadib ay re-election iyo cusboonaysiin ay ka fakeraan laakiin ayago waqtigiina u badan yahay waqti badan u haray ba waxaa moodaa qolo kasta iyagoo mustaqbalka ka cabsanaysa in laba la isku jeensanaya hadda baarlamaanka waxay ku leeyihin baarlamaanku markay ayaan joogaanba waxbay loogtaan oo qof bay dubtaan hadda marka waa soo laabteen carcar bay iska qabaan siyaasaddu iska cakirnayd waxaa dhici karta qof in la qala in la rabo madaxda sare qof ka mid a markii loo tuuro baa dhici karta inay kaas ay la boodaan kuwa kalena ay 8 bilood ilaa 1 sano nabad helaan marka waxaa dhici karta in la yiri jawaari macnaha isaga ha lagu galo si hadda isaga leeyahay waxaa dhici karta xoogaa arrintiisa waxba iska soo taray waxaas laakiin wax dalkan u fiican maahan shacabkan daalin u fiican maahan ayagana wax u fiican maahan dowladnimadana iska weeqayaan kulligood waan gartay dhinaca amniga haddaan ka hadalno iyo la dagaalanka al-shabaab saad sida la wada ogyahay magaalooyinka waaweyn dabcan waa laga haystaa laakiin dhulka miyiga iyo meelaha kale kaymaha ayuu ku jiraa dhibaato badan wuxuu ku hayaa ciidamada soomaaliya kuwa amisom iyo dabcan meelaha ay dowladdu ka shaqeynaysa sida magaalada muqdisho oo kale waxaa warar soo baxay ay sheegayaan inay magaalada muqdisho hadda aada ugu soo firfircoonaanayaan markaa bal dardartan cusub ay la soo baxeen iyo khatarta ay ku abuuri karaan dowladda soomaaliya shabaab dad aada u tiro badan maaha waa 3 kun 4 kun 5 kun 10 kun oo qof kama badnaa dowladduna 10 iyo xoogaa kun oo military iyo 10 iyo xoogaa kun oo booliisa iyo 5 kun oo nabad sugida iyo shaqaale dowladeed iyo intaasoo dad ay haystaan shacabka Soomaaliyeed badankiisuna dowladdiiba la jiraan iyo shacabka haddii la isku barbar dhigo
shabaabka marka sababta ay hawshooda ugu shaqeynayso laba mid waayo ayaga horta shaqo lagama rabo iskool inay dhisaan oo caafimaad dadka bixiyaan oo system iyo sharci degsiyaan lagama rabo shaqadooda waxa waa dowladdan inay dhantaalaan midda labaadna waxaa weeye oo ayaga gacan siinaysa isqabqabsiga siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo falaadka waan wax falaad baan ku sheegi karaa falaadka iska falaadayaan baa shabaabka micno u yeelaysa maahane shabaabka dowladdan kama adkaadeen mar horena dalkan la xasinin lahaa laakiin markastoo la damco in hore loo socdo ayagaa isku mashquulaya marka siyaasiyiinta soomaaliyeed siyaasad xumadooda baa keenaysa inay shacabkan ku jiraan tihan hadda ay ku jiraan marka waa ayaan darro weyn waayo macnaa runtii waa garta siyaasad xumaad soo hadal qaaday mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa in faragelinta dibaddu ay kaalin ku leedahay siyaasad xumada ka jirta soomaaliya oo meelo kale dadka qaar looga gacan haadiyo saasna ay ku bilowdaan mooshinadani waxa la sheegay marka haddaynu si gaar uga hadalno wadamada gacanka iyo gaar ahaan waddanka imaaraadka iyo shirkadiisa DP World xaggay dabayshani ku waddaa soomaaliya war soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay dadka madaxda qaranka madaxweyne ugu horeeya ra-iisul wasaare ku-xigo gudoomiye baarlamaanka ku-xigo wasiirada xildhibaanada dadka hadda xilka haya waa mas-uuliyadda ugu weyn ka saaran tahay dalkan inay danihiisa waardiyeeyaan waddan walbana meel uu ka nugul yahaa jirta wadamada West Africa cudurro iyo eboole iyo hadda waxaa kusoo kaco oo dhibaya soomaaliya nugeylka iyo siyaasad xumada ama maaragtay caqli xumada siyaasadeed baa waxay keenaysaa in banaanka lagaga soo gacantogaaliyo dowladda soomaaliyeed marka lacag ay qadar ka heshay kuma sii jiri karto kuwa mucaaradkana lacag ay imaarad kasoo qaabteen madax kuma noqon hayaan labadoodaba waxay wax ku noqon karaan haddii iyagu intay isfahmaan hadda ujeeda Kenya iyo macnaha madaxweynaha Kenya iyo Odinga Raila Odinga waa ay gartay waxay dhaheen dalka iyagu haadaan baan ka tuuri rabnaa waxaan go'aan gaarnay inaan break qabano sababtoo aabayaasha baa soo bilaabay wareerka marka annaga arrintan waxay iska qabsan leedahay siyaasi adduunku wuxuu leeyahay hogaamiyayaal aragti dheer leh oo dadkan u sahamiya oo meel ka rara oo meel gaarsiiya Mandela oo kale iyo runtii hogaamiyayaal bay leeyihiin wixii hogaamiyayaal waaye waxay helaan siyaasiyiin oo danahoodana waardiyeysta ummadda ay madaxda u yihiinna danahooda riixa si ay fursado kale u helaan annagu waxaan unfortunately ama nasiib darro siyaasiyiinteedana waxay isku soo baxeen niman macnaha aragtidooda aada iyo aada u gaaban tahay oo maanta maxaan sameeyaa iyo maanta yaan qalacaa iyo maanta yaan qashaa kusoo haray taasaana keenaysa dad badan in la laayay oo maalin walba 600 oo qof 700 oo qof qarax kasta ay ku dhimanayaan ayaguna ay dowladdii timaadaba iyadoo aan nuxur lahayn ay tegayso madaxweynihii Cabdiqaasim laga soo bilaabay ilaa hadda madaxweyne walba isagoo aan nuxur lahayn buu meesha ka tagay kuwan hadda meesha joogana ama madaxweynaha noqdo ama ra'iisul wasaare ama xukuumad ama baarlamaan haddii aysan kusoo jiraan isqabsadaan ayagoo aan nuxur lahayn baa 2 sano u dhamaanaysa ama 3 sano u hartay waan gartay shirkadda DP World markaan ka hadlayno dowladda Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya uu mamnuucay hase yeeshee xukuumadda Soomaaliland oo dhinaca heshiis fiican bay la gashay waan ognahay boosaaso sidoo kale maamul goboleedyo kalena si gaar ah hoose saaxiib u yihiin marka madaxa DP Worldna mar uu ka hadlayay qaraarka ama go'aanka dowladda Soomaaliya wuxuu yidhi dowladda Soomaaliya wuxuu isku odhanaysaa wax fala ama tallaabo ama qaadi karto marka haddaad eegto raadka ay ku leeyihiin gobolka iyo siyaasiyiinta Soomaalida maxay ku samayn karaan hawl ama habsamo socodka hawlaha dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada intaba shakhsiyan anigu waxaan aaminsanahay qof aan shacab dooran shacab tiro badan oo malaayiin qof aysa dooran horta inuusan heshiis weyn bageli karin kuwa gobolada jooga ama Kismaayo ha joogo ama Baydhabo ha joogo ama Muqdisho ha joogo ama meel kale ha joogo qof aan dad badan dooran oo mandate shacabka ka haysan horta sheekooyinkan waa weyn oo ay galayaan anigu inay geli karaan ma aaminsanayn waxaa la dadkan maslaxadooda in la waardiyo iyagoo diyaar loo yahay loo yaro la qabsaday laga fikiray hadda ka hor bad Kenya heshiis la saxiixday ilaa hadda kasoo waaqsan la'anahay dhibaatadii ka dhacday dowladdii markaas jirtay saxiixii lala galay Kenya oo aan laga fiirsan marka shacabka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay horta inay dhahaan markaan intii afti la qaado oo dastuurka la ansixiyo waa sheekooyinka waaweyn oo dekedaha iyo badda iyo baasiinka iyo ku saabsan la geli karaa DP World waa shirkad deked bay Dubai iyo ama Imaaraadku dheh deked bay dhinacaan kale ku leeyihiin badda dhinacaan ka degan dhinaca kale ku leeyihiin dekadaheena waddan deked inay noo maamulaan oo ku wareejino aniga lama saxsana dadkan hadda macnaha ku kala yaacayo loo kala hadinayana waxa weeye waxay ka fiirsadeen galmayaan cariiqsi iyo kamba waa sameeyay ma sameeyay iyo aagayga maxaa lagu soo galay bay u sameynayaan dowladda Soomaaliyeedna
iyo baarlamaanku hadda siday hadda somaliland ula dhaqmeen waxay un wayna cariyeen hadda imaaraadka iyo somaliland waa isku cariyeen oo waa isku fogaadeen labana wadahadaladii somaliland lala waday iyo waxaasna meesha ay kasii bixi karaan marka guud ahaan siyaasad aan miyir lahayn oo ku dhifo ka dhaqaaq ah oo markaas wixii qofka la gudboon waxaa marka hadda tallaabo qaadaysid qof kale markuu kaa dabaaqo oo siyaasadaada mid cagsi ku sameeyo inaad ka macnaha ka noolaan ka dhid wax kasoo baxaya marka xoogaa waxaa iska muuqata siyaasado un iska waa la didahaya macnaha waxaana ku khasaaraya shacabka Soomaaliya baa ku khasaaraya waan gartay laakiin Somaliland shacabkeeda doorta adoo isoo koobaya heshiiskaas iyadu ma u saxsan Somaliland 25 sano ayaga horta ismaamulahayay dowladda Soomaaliyeedna hadda wada hadal lagu heshiiyo haddaan kala baxayno haddaan isku soo noqonayno ayagu marka way og yihiin in Soomaaliya ay wax isaga jiraan oo adduunkeena markay soo wareegaan 25 sano waxaa la yiri go'itaankiina iyo go'aan istaagiina wuxuu ku xiran yahay Soomaalida inaad wax soo dhigtaan taas waa mid oo dadka Soomaaliyeed dowladda ha noqoto ama Soomaali in badan oo Soomaaliland hadda ka soo jeeda waxay aaminsan yihiin Somaliland inay dalkooda ka tirsan tahay وحقيقة dad badan dowladda Soomaaliyeed dadkeedu waxay aaminsan yihiin Somaliland inay Soomaaliya ka tirsan tahay Somaliland 25 sano iskeed isaga socoto ismaamulaysi marka waa siyaasad u baahan weeye tartiib iyo cilmi in lagu furdaamiyo laakiin sida hadda loo galay waa macnaha waa qaraxday macnaha waxaana saameyn weyn ku leh nuglaanshaha loo nugleeyahay ama sida loo dhex dabaashay isqabsiga qadar iyo ka dhexeeya imaaraadka marka waan nugul lahay dariskeenuna daris ma turaya maahan annaguna marka meeshaan la taabtaba waa dhiiqaysaa waan gartay ugu dambeyntii si kooban DB World maxay samayn kartaa talabada xigta xageysa arrintan marka la isku wada milo Soomaaliya iyo DB World iyo gobolka oo dhan xagee arrintu ku beebi shubanaysaa horta DB World waa imaaraadka kale dowladda imaaraadka weeye dowladda imaaraadka waa hubaal dowladda Soomaaliyeed bay isdiidan yihiin sababtoo qadar bay isku dhagan yihiin dowladdan qadar bay aad ugu dhex jirtaa haddaa labnaanta ay dowladdan qadar ku laban tahay baa inay imaaraadku nagu sii cartaan oo siyaasaddaas ay hadda ka shaqeynayaan ama goboleedaha noqoto ama Soomaaliland noqoto ama xildhibaanada wixii xiriir leeyahay noqoto ay sameynayaan waxay lug ku leh sida anagu dowladda qaybteeda naga mid ay qadarta isugu dhuun daloolaan guud ahaan Soomaaliya marka hal xal un bay leedahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay hogaamiyaal noqdaan lugahooda isku duudaan markaas si cilmiyeysan baa horumarka ay Somaliland rabto xagga dekedaha ka rabtay iyo Puntland rabtay iyo dekedaha kale oo jira na loo gaari karaa masiirka iyo danaha ummaddan oo dhow iyo dheerna loo waardiin karaa laakiin habkanka iyo shaantaa rogan ee Somaliland ku khasaaraysa ee Soomaalida kalena ay ku khasaaraysa adduunkii hadda xoogaa noo soo dandanayna way nala yaabi doonaan aad baad u mustacabdirshid adiga thank you